السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيرتا وان سلامي جمعة وناكسن سو دوادا magacayga waxaa la Cabdirmaan Caseer kusoo dhawaada channelkayga YouTube-ka haddii aadan hore ugu jirin subscribe garee sidoo kale videoskan soo gelin like iyo share u samee maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo su'aal in badan igu soo noqnoqotay oo la yiraahdo ardayda inta badan barata computer science-ka intooda badan waliba kuwa programming-ka waxay aad ii weydiiyaan halkeen ka bilawnaa sideen u bilownaa fikrad ma ka haysan xagga waxaan ka bilaaweyno marka waxaan doonayaa dadka qalqalka ku jira inaan ila caawiyo maanta intaan awoodi karo. Marka waxaan doonayaa inaan ka hadlo website ay la yiraahdo Roadmap oo website aad u wanaagsan fahamto wadada u qaadi lahayd development. Website-ka magaciisa waa idin soo qori doonaa. Marka soo furto website-ka intaas oo qayb uu kala qaybinayaa muxuu ahaa barnaamijyada uu dadka tusinayo. So barnaamijka ama qaybta ugu horeysa waxay noqonaysaa front end. Haddii aad doonaysid inaad front end developer noqoto waxa weeye front end qofka doonaya inuu barto muuqaal qurxinta iyo website-ka nooca uu ekaanayo iyo application-ka nooca uu ekaanayo. Waxay inta badan la tacalluqdaa design-ka iyo qurxinta websites-ka application-ada waana qaybaha ugu waaweyn bay ka mid tahay development-iga. Qaybta xigta waxa weeye back end-iga oo ah barnaamijkan waxa xaqiisa dambe ka dhacaya development-iga ah. Nimanka aan la hadlay YouTube-ka aan video ka daawanaysaan ama Facebook-ka ka daawanaysaan idinku waxaad arkaysaa wax qurux badan oo muuqaalkii oo diyaarsan sawiradii comments-kii laakiin xagga dambe waxa ka shaqeynaya database-kii isku xidhkii sida waxaan u shaqeynayeen oo dhan. Marka kaas maxaa qabanaya back end-iga waana qaybaha ugu waaweyn bay ka mid tahay. waxaa ku saaran DevOps-ka oo asagana qayb ka mid ah development-iga oo inta badan management-iga iyo code-ka iyo muxuu ahaa deployment-giisa waxa ka hadla isagana qayb aad u ballaaran. inta kale waxaa ku sharxayaa qaybaha dadka doonaya inay app development-iga bartaan Android-ka xagaas bay ka eeganayaan Angular oo iyadana luqad JavaScript qayb ka mid ah React Python. marka saddexda ugu sareeya waa kuwa ugu waaweyn intaan kalena waa qaybo yaryar oo ka mid ah laakiin ayagana waxay sii yeelan doonaan wadooyin badan oo loo sii maro. marka haddii tusaale doonaysid inaad Python barato waa inaad markaa roadmap-ka u mar lahayd Python aad sii gasho. marka u horeys waxaan ka bilaabi doonaa inaan eegno front end-iga markaa click ku siino. halkan wuxuu inoo soo saarayaa wadooyinka u mar lahayn front end-iga. marka xagga u horeysa wuxuu ku siinayaa tips yar qaabka aad u akhrisan lahayd map-ka. marka xaggan wuxuu ku leeyahay calaamadda purple-ka ah wuxuu ku dhahayaa waa waxyaabo personal recommendation ah qofka u wanaagsan inuu barto. kuwan waxa weeye optionskii alternative-ka ah oo inta badan dhowr luqad buu ku soo wada dhigaa. marka kuwa green-ka waa kuwa muhiimka ah marka labadaas baa ugu muhiimsan. so hadda kuwa u horeeya dhammaantood waa purple. marka front end-iga halkaas baa laga soo galayaa. xagga dhexda marka aragto qoraalka front end meeshuu ku qoran yahay lead yar baa ka baxayo blue ah. leadkaas wuxuu ku tusinayaa wadadii weeyta roadmap-kaasi mar lahayd. so wadadii waxaa kasii dhex baxaya dhinacyada luuqa yaryar oo aad la doonaynaa wadooyinka yaryar aad sii marto luuqiska. so marka muhiimaddu waa wadada dhexda ku taal inaad marto oo aad qaado taas way roadmap-ka ilaa waxay nala tegaysaa halkaa hoos ma dhow. marka intaan waan isdul taagaynaa mid qaarna waan dul mari doonaa. qaybta hore waxaa internet-ka wax ka taqaan marka hore. internet-ka wuxuu noqonayaa waa maxay HTTP sidoo internet ku shaqeeyaa browsers u shaqeeyaan DNS waa maxay domain name hosting u shaqeeyaa. marka intaan waxa weeye iska hordhac hore qofka la doonayo inuu fahamsan internet-ka sidoo u shaqeeyo because adiga internet waxa inta badan front end marka taa waxay ku shaqeynaa website iyo application so inaad fahamsantahay what's internet kadib waxaan u soo gudbi doonaa wadada marka internet soo dhaafno waa inaad saddexda luqadood barataa. tan JavaScript HTML ko waa markup language wax aad u fududahay waana qasab qof kasta inuu yaqaano wayna fududahay marka qofku bilaabay inuu ku bilaabo sababtoo ah waa very easy. saddexda luqadood HTML ko waxyaalaha muhiimka la doonayo inaad fahamto basics-ka iyo sida HTML ku u shaqeynayo formam-ka iyo validation-iskooda. xaggan kalena waxaa ku yaala SEO basics-ka inaad waxyaabaha yar layout-ka waxaa fahamto. marka HTML-ka laga yimaado CSS taydan waxay yeelanaysaa layout-ka iyo basics-ka CSS-ka inaad taqaano iyo responsive-ka iyo sida uu u shaqeeyo pages-ka mobilada iyo computer-ka kuwa shaqeeya oo isbedbedela. layout-ka sayna waxaa kasii baxay inaad fahamto box model-ka iyo flexbox-ka iyo CSS grid system-ka. kadib hoos baa usii dhaadhacinaa iminka xiisa yeelanaysaa bahasha JavaScript oo ah wadadii kale aan kusoo dhacnay. JavaScript waxyaabaha la doonayo qofka inuu ka fahmo waxaa ka mid ah bilowga hore
basicskiisa iyo DOM manipulationka API-ga iyo Ajax-ka iyo waxa kadib waxaa usoo gudbi doontaa inaad timaado version control system-ku Git iyo GitHub kadib GitHub markaa fahamto kadib waxaa usoo gudbi doontaa web security knowledge kadib waa soo socnaa imika baaska aan qaadno waa JavaScript oo wadada dad baa JavaScript ka soo dhaxbaysa marka hadda tusaalaha ama qofkan wuxuu nagu fahamsiinayo waxa way JavaScript inaan ka qaadano roadmap-ka kadib waxaa imaanaynaa package managers kana fahamto npm iyo aan u shaqeeyaan waxyaabaha security la doonayna fahamto waxaa kamid ah HTTPS-ka CORS-ka iyo content security policy ama CSP-ga kadib package managers markaa kasoo baxdo CSS architecture baa imaanaysaa ama CSS preprocessors kadib waa soo soconaysaa build tools marka website-ka waa idin soo dirayaa idinka qofka doonaya inuu noqdo front end-ga markaa intaa ishaasi maray React waad galaysaa Angular Vue.js wuxuu ku tusinayaa adiga wadada weyn ee dhexda maraysa baad raacaysaa meesha kula tagto marka ilaa bootstrap-ki baad imaanaysaa CSS frameworks-ki oo soo soconaysaa ilaa ugu dambeyn mobile applications-ki React Flutter Ionic baa imaanaysaa haddii kalena waxaad aadaysaa dhinaca kale static site generators-ka waxaan dhawaa JavaScript packages iyo ugu dambeyn halka markaa timaado aniga idin sheegay programming-ku isagoo cilmi socda mar walba la doonayo inaad sii barato wadada waxay ku kordhaysaa keep learn oo inaad wax sii barato aadan xagga ku joojin marka intaan waxaan kaga baxaynaa front end-ga haddii aan ku noqono back end-ga isagana back end-ga sidaas lamid ah internet-ka iyo basic knowledge-ka inaad fahamto kadib waxa laga doonayaa isaga kaga duwan yahay kii hore inaad fahamto operating system-ka iyo general knowledge-ka Linux-kiisa u shaqeeyaan terminal usage-ka sida commands-ka Linux-ka loo qoro kadib luqadihii baa la gaarayaa inaad kala doorato 6 luqad buu kuu soo dhigay Java JavaScript Python C# PHP Ruby kadib luqadda markaad doorato so haddii hal luqad aad si fiican u barato imika Java iyo Python oo kala tusaale ama JavaScript waa luqado object oriented ah haddii aad si fiican u fahamto luqadahaas oo kale oo dhan hadhow easy baad ku noqonaya markii waa la qabsanaysaa kadib mar walba waxaa muhiim inaad barato version control system-ka Git iyo commands-ka Git iyo sida loo isticmaalo GitHub-ka iyo GitLab-ka iyo Bitbucket-ka kadib waxaa la galayaa database-ki waxaad tagaysaa relational database-ki wadada qayb kale waxay leedahay NoSQL database oo database-ka cusub waxaa kamid ah MongoDB relational database-ka waxaa kamid ah MySQL MariaDB Oracle PostgreSQL waxyaabaha kale oo database-ka ku saabsan waxaa kamid ah ORMs-ki transactions-ki database normalizations-ki marka qaybka hadda wadada database-kan ku dhex jirnaa markaan ka soo baxnaa iyadana web security knowledge isagana mar walba muhiim weey HTTPS-ki waxa inaan barato kadib waxaa imaanaynaa Docker-ki iyo containerization-ki virtualization-ki VPS-ki inaan barato GraphQL-ki isagana Facebook API-ga uu leeyahay kadib soo soco ugu dambeyn waxaa imaanaynaa building for scale marka migration-ki istaraatiijiyadii marxalista haddii aad software-ka dhammayso so intaan qofka back end-ga baranayo waa inuu mar walba soo dul maraa so qasab maahan waxyaabahan aan sharxaynba inaad wada barato laakiin waxaan ogahay qayb walba inaad ID ka haysataa qofka developer-ka markasta isaga qayb kamid ah back end-gu ka shaqeynaya marka hadda tusaale haddii aad tahay Java developer qasab maaha inaad barato Docker isu u shaqeynaya laakiin way wanaagsan tahay iska karnayso marka laakiin wax fudud way qofka hadduu mar walba computer-kii haysto shaqada ku dhex jiro maalin walba wax cusub baa usoo kordhaya marka waa intan waa experience qaadanaysa ilaa sanado badan ilaa 10 sano ku qaadanaysa inaad waxaan ku barato at the same time adigoo shaqadaadii ku jira waxbarashadan sii kordhaysa development-na wax socda maaha wax mar ma dhamaanaya adigoo shaqeynaya laga yaabaa maalin walba inaad Google-ka wax cusub ku raadiso Stack Overflow inaad wax cusub ka barato so marka labadaas baad aan ka hadlay DevOps-ki baa isagana jira haddii aad soo gasho website-kan waxyaabo badan baad ka faa'iideysan kartaa so linkiga waa idin soo diraya idinka sii dhexgala qof walba wuxuu doonayaa inuu barto ka sii qorsheysto marka waxaan filaynaa fahamteen aad iyo aad baan idin salaamahay ilaabina inaad subscription siisaan YouTube channel-ka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh